waxaa saxiixay wasiirka arrimaha gudaha iyo Sheekh Shaakir 10 qodob ku qoran waa idin akhrina magaaladaana waa joogteene wixii gafaho federaal jirana barta wixii gafaho meel kale jirana barta waxa ugu horeeya qodobka koowaad ah si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtageliya qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug qodobkaas waa kan la gaarsiiyey heshiiskan ayadoo laga amba qaadayo 400 oo ciidan ah oo isku dhafa oo isugu jira ahlu sunna wal jamaa iyo dowladda federaalka hal adeejiyo in la yiraahdo qodobkaas waa kaas arrinkan shuhada ka tiin haddaan qodobkaas wax ka jabinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiin labo in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hanaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ciidan ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka ahlu sunna noogeyn saddex in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyay ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada howlgalaan deegaanka galmudug haddaan samayn hana lagu qabsano haddaan samaynana waa samaynaa hana loo soco afar qayb qodobkaana waa muhiim waxaan rabaa inaad dhegaysataan in qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka sida gaarka u tababaran loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Dhuusamareeb habbahan ya qabata marka dan taas ku heshiin hadli mayno hadday sanbixin ma meesha gali karto ahlan wa sahlan in agoonta ciidanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ay helaan daryeel dowladeed oo waafi ah wali waxba lagama qaban waa howl dhiman qodobka lixaad waxaa la isla gartay in magaalada Dhuusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka culimada dumarka iyo dhalinyarada shirkaas wasaaraddu waxay u magacaawday guddi qabanqaabo oo aan u bixino guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug halkaanay ka baxeen gurceel ay ka bilaabeen balanbal ay ku xijiyeen caabuduwaaq huursha xeraale gaalkacyo cadaado waxaan u malaynayaa waxaa ka dhiman galmudugta maanta aan gacan cadow ku jirin waa yaryihiin fariin nabadeed ay gaarsiiyeen waa la isu imaanaa waa in la heshiiyo heshiiskaas waa inuu noo hogaamiyaa inaan doorashooyin aan dowlad ugu dhisno galmudug lagu gaaro intaasi waa qodobadii ku saabsanaa amniga iyo ciidanka arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb qodob jabi karaba maaha kaas 8
wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabaya guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug guddigaasoo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin arrimaha kale ee mudnaanta leh waa qaybta saddexaad oo u dambaysa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u fasaxdo